49 sano ayaa ka soo wareegatay markii la bilaabay koobka General Daawud waxaana ahayd sanadii 1971 markaasi oo koobka loogu magac daray Allah u naxariistay halyeegii militariga Soomaaliya General Cabdulle Xarsi markaana kubadda waa la baasa doonaa ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Horseed waa ay baasteen dhaxda ay taala markaan xasaasi kubadda uu soo qaaday Joshua ayaa kubadda ka booday Gesey dheer xaaji dheere ayaa sida baastada oo kale u duubtay kubaddii uu soo tuuray xidiga halista badan ee qadka dhexe ee qarankiisa sidoo kale kooxda Horseed Xasan Cabdinuur Gesey waxaana uu yiri dheer xaaji dheere waxaa noqonaya mid kamid ah goolayaasha ugu saameynta badan wadamo waaweyn ayuu ka soo dhaliyay goolal waaweyn ciyaaryahanka lagu magacaabo Abbas kubadda waa la soo qaaday madaxa laakiin dekada waa laga diiday banaanka ayuu kubadda markaa martay macna Alex Wakan oo isaga wax ka yar hal bil ku sugan halkan nasiibna u yeeshay inuu gaaro finaalka koobka General Daawud dib horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya General Daawud Cabdulle Xarsi taliyihii ugu horeeyay militariga Soomaaliya ayaa koobkan lagu magac daray militariga Soomaaliya ayaana koobkan sanad kasta ku taageeray in markaasi uu sponsor gareeyo وهاجاك مركان وحي مريسات دقدي 17 waxaana iska leeyahay faul ciyaartooyda kooxda Horseed ayaa markan iska leeyahay faul Xasan Cabdinuur Gesey ayaa kubadda tuuri doona Horseed ayuu kan hadda matalaya la markii lixaad ayuu wataa tababar Alex ayaa u gartay laacibkan inuu hogaamiyo khadkiisa dhexe maadaama uu yahay ciyaartooy darbo kulul iyadoo kulankii ugu dambeeyay uu bedel ku soo galay Gesey ayaa kubadda soo tuuraya waa uu soo qaaday فرحان حدقة يا دليي كوبد كلو مدحة كلن كيسي لبات أيونا دليي كان وحاني نقول سعيار تقولي برو كوحدة كوبد عكتور سيدي كو قامينيسو حسن عبد النور Gesey أيا كوبد سوقاري فرحان حدق Gesey برية برتما أفريقيا قرنك سوماليا هيا Horseed وايد دبال دكتي وحاني دليي نقول قروح بدن kulankii horan islaan oo kale ayuu xasaas u soo tuuray waxaana dhameystay laacibka lagu magacaabo Farxaan Xidig wiilasha kooxda Horseed ayaa markan garbaas qabsanaya way dhowla cadeeyeen way dabaal degeen way reeyaqeen waxaana ay u muuqdaan galabtayna markaas ciyaartay hoggaan ku qabteen Farxaan Xidig ayaa dhaliyay goolka koowaad ee ciyaartan finaalka ayuu soo qaaday laacibka lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Gesey oo loo yaqaan xasaasi koornada ay ahayd waxaana markaasi soo qaaday kubad aad u qurux badan oo qiyaasan kooxda militariga Soomaaliyeed magaceeda ku ciyaarta ayaana hoggaan ku qabatay daqiiqadii 19 ee ciyaarta ya salaam waxaana markaasi ay noqotay gool yimir weerarka markan Horseed ayaa wadata ciyaaryahan maat la marka 9aad ee kooxda kubadda cagta Horseed faul ayaa loo dhigay waxa Horseed u tuuraya darbo weynaha lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Gesey xasaasi daymanka Soomaaliya حسن عبد النور Gesey كوبادو حسن عبد النور Gesey أساسي جول 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 Horseed لابو بكدا إبر حسن عبد النور Gesey Somali best player أيا وشويلات حرة أو دو مرسي يا كوحدة كوبادا عيت دكدا ninka lagu magacaabo dheer xaaji dheere waxaana uu yiri koobkan waa General Daawud kooxdana waa Horseed inaga ayaana ku dadkii ugu dambeeyay sidaad ciyaaryahanka ugu wanaagsan Soomaaliya ayaa ka dhaliyay kubad laad xura goolayaha kooxda kubadda cagta dekada dheer xaaji dheere maqaayadiina isaga ayaa sii shiday oo ka dhigay ciyaarta 2 gool yimir Horseed ayaana sidaa ku hogaaminaysa ciyaarta dekadana waxaa markaas ka sii dheeraanaya fursadii markaasi ay ciyaarta ugu tartamayeen inay koobkan Gesey xasaasi ayaa dhaliyay laad xura markasta oo taageerayaasha garoonka ay soo camiraan Gesey shabaqa maseego sidaa darteed waxa uu dhaliyay laad markaas aad u qurux badan Xasan Kaafi oo kamid ah garsoorayaasha hadda soo dalacay ee la aqoonsada gol 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 Xasan Nuur حساسي يا دليل جول كسد هذا عيارته جول كيسي لبات سدحنا isaga ayaa ku lug yeeshay mid waa uu dhiibay labana waa uu dhaliyay Xasan Cabdinuur Gesey xasaasi Somali best player mid kamid ah laacibiinta ugu fiicnaa ee soo maray gagada kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa dhaliyay goolkii saddexaad ee ciyaarta waxaana uu leeyahay taliye salaantiga qaado ayuu leeyahay laacibka lagu magacaabo Xasan Cabdinuur Gesey oo maqaayada ay shidan tahay maanta 3 yibir ayay maraysaa ciyaarta lama filaan waayahay Xasan Cabdinuur xasaasi ayaa ku soo baxay gobolka Shabeellada waayahay ciyaartii way dhamaatay garsoore Umar Cartan ayaa dhameeyay ciyaarta kubaddana waa uu la wareegay waxaana ciyaartay ku dhamaatay 3 gool yimir oo kooxda kubadda cagta Horseed ay guusha ku raacday